bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhammaanba dhegaystayaasha qiimiga iyo qaayaha mudan ee hawada naga dhegaysanayo waa codka soomaalida Finland SSM oo goorahan oo kale aad uga barateen wararkii ku saabsanaa fayruska corona ee Finland iyo caalamka intiisa kale alaaba waxaan wararka idiin soo gudbinaa maalmaha Isniinta, Arbacada iyo Jimcaha. haddii aan ku horeyno dalkan Finland, sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka iyo nolol wanaagga dalkan ee THL loo yaqaano, maanta oo Jimco ah bisha Maarshna 12 ay tahay sanadka 2021 waxaa laga helay fayruska corona tiro gaaraysa 706 qof, iyadoo maalintii shalay ee Khamiista ahaydna tiradu ay ahayd 720. taasi oo tirada guud ee dadka laga helay fayruska corona ee Finland ka dhigaysa tan iyo intii cudurka safmarka uu ka bilowday dalkan Finland oo ahayd sanadkii la soo dhaafay 2020 bishii March, tiro gaaraysa 65,315 qof. labadii toddobaad ee ugu dambeysay ayaa tiro gaaraysa 9,000 oo qof ay ku korortay tirada dadka laga helay fayruska corona labadaasi toddobaad ka hor. isku darka guud ilaa iyo 60 magaalo oo dalkan Finland ayaa laga helay cudurka, waxaana ugu badan meelaha fayruska laga helay sidii caadiga ahayd gobolka Helsinki iyo Uusimaa oo caasimadda iyo hareeraheeda ah oo laga helay 499 qof. waxaa ku xiga gobolka Varsinais-Suomi oo laga helay 82 qof iyo gobolka Pohjois-Pohjanmaa oo laga helay 22 qof. magaalooyinka laga kala helay xanuunka sida ugu badan waa Helsinki 251, Vantaa 102, Espoo 76, Turku 57, Tampere 16, Kuopio 24, Oulu 12, Kerava 4 qof, Nurmijärvi 6 qof, Kirkkonummi 4 qof, Hovinkaa 8 qof, Järvenpää 3 qof, Lahti 8 qof, magaalada Tuusula 5 qof, Borfo 8 qof, Vihti 5 qof, magaalada Lohja 7 qof ayaa laga helay, Sibbo 3 qof, Mäntsälä 8 qof, Karkkila 2 qof, Loviisa 4 qof, Askola 2 qof, Raisio 5 qof, Laittila 4 qof, magaalada Kemiönsaari 2 qof, Sauvo 2 qof, Kangasaala 2 qof, Liminka 5 qof, Kuusamo 2 qof, Buhanta 2 qof, Vaasa 2 qof, magaalada Rauma 7, Hamanliina 2, Iisalmi 2, Kouvola 10 qof, Kotka 2, Mikkeli 2, Kauhava 2, Lappeenranta 7 qof, Maarianhamina 5 qof, Savonlinna 2 qof. waxaa min 1 qof laga helay magaalooyinka kale Keminmaa, Parikkala, Ilmajoki, Rautalampi, Jokioinen, Hausjärvi iyo Jyväskylä iyo magaalooyin kale oo dhowr ah iyaguna min 1 qof laga helay. tirada daryeelka ugu jirta xanuunka awgiis isbitaalka ayaa maalinka ka dambeysa sii kordhaysa, waxaana haatan tiradu ay maraysaa 264 qof. sidoo kale qaybta gargaarka degdega ah ayaa tiradii ku jirta ay korortay, waxaana haatan ay gaartay 47 qof. tirada dhimashada ayaa sidoo kale aad u korortay kadib markii maalintii shalay ahayd 4 qof ay dhinteen, maantana 3 xaaladood oo dhimashaha cusub la helay, waxaana tirada guud ay noqonaysaa 786 qof. labadii toddobaad ee ugu dambeysay waxaa dalkan Finland xanuunka fayruska corona awgiis ugu geeriyooday 43 qof. hay-adda THL waxaa kaloo ay shaaca ka qaaday in fayruska nooca cusub ee corona ee laga helay dalkan Finland uu si aada u sii kordhayo, iyadoo tirada guud haatan ay marayso 736 qof, kuwaasoo 1633 ka mid uu yahay nooca Ingiriiska, halka 102 kiisna uu yahay nooca Koonfur Afrika iyo 1 xaalad oo ah nooca cusub ee laga helay dalkaasi Brazil. dhinaca kale, wararka gudaha markii aynu jaleecno, wararka ka imanaya magaalada Turku ayaa waxa ay shaaca ka qaadayaan in wixii ka bilowda Isniinta soo socota dadka raacaya gaadiidka dadweynaha ay markaasi khasab ku tahay in ay qaataan afshareerka. sidaasina waxaa sheegay hay-adda gaadiidka dadweynaha ee gobolkaasi Turku oo loo yaqaano Voli, waxaana arrinkaasi sabab looga dhigay xaaladda fayruska corona ee gobolka Varsinais-Suomi oo aad uga soo daraysa, islamarkaana haatan meel adag maraysa. Isniinta soo socota 15 bisha 3 laga bilaabo, wixii ka weyn 12 sano ee musaafira ama raacaya gaadiidka dadweynaha ayaa waxay khasab ku tahay in uu qofkaasi qaato afshareerka haddii aanay jirin wax sabab caafimaad ah oo uusan la isticmaali karin. sidoo kale, hay-adda Voli ee gaadiidka dadweynaha ee Turku waxa ay dadweynaha xusuusinaysaa ama ku boorinaysaa in dadku ay ka baaqsadaan islamarkaana iska ilaaliyaan in ay safraan ama ay gaadiidka raacaan xilliyada tirada ugu badan gaadiidka ay saaran tahay
ee ah xilliga subaxda hore 7 ilaa 8 barka iyo marka la gaaro 1 ilaa 4 barka, xilliyadaas oo ah xilliyada gaadiidku ay aad u buuxaan. waxaana hay-addu ay dadweynaha ku boorinaysaa in xilligaasi ay ka wareegtaan islamarkaana xilliyada caadiga ay dadku raacaan haddii ay suurtagal u tahay. dhinaca kale, isla Turku wararka ka imanaya ayaa waxay shaaca ka qaadayaan in isbitaalka dhexe ee magaaladaasi Turku ee jaamacadda la xiri doono 2 qaybood oo ka mid ah qaybihii dadka lagu qali jiray ama saaladii qalliinka. arrinkaasina waxaa sabab looga dhigay xaaladda viruska corona ee cudurka safmarka ah ee gobolkaasi oo aad uga soo daraysa, iyadoo markaasi tirada dadka isbitaalka la keenayana ay soo kordhayso. isbitaalkaasi Turku ee jaamacadda waxaa haatan ku jira 13 qof oo xanuunka viruska corona qaba, kuwaasi oo qaybaha caadiga isbitaalka jiifa. sidoo kale 9 qof ayaa waxa ay ku jiraan qaybta gargaarka degdega ah. sababta sidaa loo yeelay oo loo xiray saalooyinkaas qalliinkana waxay tahay in shaqaalihii halkaa ka shaqaynayay ay firaaqo u helaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen dadka xanuunsan ee ku jira qaybta gargaarka degdega ah. madaxa isbitaalka jaamacadda Hus ee Helsinki, Juha Tuominen, ayaa mar kale maanta afka ku dhuftay in dadka ajaanibta ah ee degan caasimadda iyo hareeraheeda ay yihiin kuwa aad ugu dhex faafay xanuunka viruska corona marka loo eego faafista caadiga ah ee Helsinki, Espoo iyo Vantaa. waxa uu sheegay in dadka ajaanibta ee luqadaha kala duwan ku hadla ay 40% ka yihiin tirada faafista ee laga helay caasimadda iyo hareeraheeda. sababta awgeed ayuu waxa uu Juha Tuominen soo jeediyey in dadka ajaanibta ee ku nool caasimadda iyo hareeraheeda, gaar ahaan goobaha ay dadku ku badan yihiin, laga hormariyo tallaalka dadka caadiga ah oo kiiskooda lasoo hormariyo. arrintaasi ayuu ku tilmaamay inay tahay mid khatarta yarayn karta. hadalkan ka soo yeeray Juha Tuominen ayaa noqon kara mid ay ka kacaan ama ka caroodaan dadka ajaanibta ah, iyadoo sanadkii hore bishii Maaj aynu soo dhaafnay sidaasi oo kale shaaca uga qaaday in tirada dadka laga helay cudurka, khaasatan Soomaalida, ay yihiin kuwa ugu badan, taasi oo markaa keentay in dhalinyaro Soomaaliya iyo dad badan arrinkaasi ay ka caroodaan islamarkaana ay ka xumaadaan. waxaana magaalada Helsinki markaasi loo gudbiyey qoraal ka dhana arrinkaasi oo ka dhiidhiyaya in aysan habboonayn in cid gaara la beegsado ama lasoo magacdhabo markii arrimahan oo kale laga hadlayo, taasi oo markii dambena magaalada Helsinki ay arrinkaa ka garowday. weli lama oga hadalkan ka soo yeeray Juha Tuominen saameynta uu ku yeelan karo dadka ajnabiga ah iyo haddii arrinkaasi la hirgeliyo oo tallaalka loo hormariyo, sida markaasi dadka ajaanibta ay arrinkaasi ku yeeli doonaan. dhinaca kale, wararka ka imanaya magaalada Vantaa ayaa iyaguna waxa ay shaaca ka qaadayaan in sidaasi si la mid ah dadka ajaanibta ee ku dhaqan magaaladaasi Vantaa ay tiro badan ka yihiin marka loo eego dadka laga helay viruska corona ee magaaladaasi oo dhan. sida uu sheegay ku-xigeenka duqa magaalada islamarkaana ah qaabilsanaha arrimaha bulshada iyo caafimaadka, Timo Aronkuto, waxa uu sheegay in kala bar dadka ajaanibta ay ka yihiin dhammaan marka la eego dadka laga helay viruska corona. waxaana arrinkaasi uu carabka ku dhuftay in tirada ugu badan ay yihiin shaqaalaha ka imanaya dalka Estonia ee dalkan Finland ay deriska yihiin, iyadoo dalkaasina uu ka mid yahay meelaha sida ba'an xanuunku uu uga dhacay. howlwadeenada caafimaadka ee dalal ka mid a dalalka Yurub sida Denmark, Norway, Iceland, Luxembourg iyo dalal kale oo fara badan ayaa amar ku bixiyay in muddo 2 toddobaad la joojiyo siinta tallaalka AstraZeneca. sidaasina waxaa sheegay raadiyaha qaranka ee dalkaasi Denmark. sababta ayaa lagu sheegay in uu tallaalku sababay xinjirow dhinaca dhiigga ah, kaasoo lagu arkay qaar ka mid ah dadkii tallaalka la siiyey. madaxa hay'adda caafimaadka qaranka ee dalka Denmark, Soren Bergström, ayaa sheegay in iyadoo lagu jiro marxalad taariikhi ah oo dadka laga tallaalayo cudurka safmarka ee corona, islamarkaana ay jirto baahi weyn oo tallaalka loo qabo, inaanay arrin fudud ahayn in la joojiyo hawshii tallaalka. hase yeeshee, ayuu yiri Bergström, waxaan baaritaan ku samayn doonaa saameynta xun ee khatarta ah ee ay suurtagalka tahay in uu leeyahay tallaalkan ka hor inta aan lasii socodsiin isticmaalkiisa. sidoo kale, dowladda dalka Iceland ayaa sheegtay in ay joojisay isticmaalka tallaalka AstraZeneca. ilaa iyo haatan 9,000 oo dadweynaha reer Iceland ayaa lagu tallaalay tallaalkaasi AstraZeneca.
dalkan Finland marka aynu eegno sida ay sheegtay hay'adda FIMEA ee u qaabilsan la socodka ammaanka daawooyinka si caadiya ayuu tallaalka AstraZeneca uga sii socon doonaa Finland. Hay-adduna waxa ay sheegtay inaanay weli jirin wax wargelin oo ku saabsan saameynta xun ee tallaalka oo iyada la soo gaarsiiyey. waxa ay hay-addu sheegtay in xaaladda tallaalka lala soconayo iyadoo ay arrinkaas iska kaashan doonaan hay-adda caafimaadka iyo nolol wanaagga ee THL. sidoo kale hay-adda daawada u qaabilsan Yurub ee marka magaceeda la soo gaabiyo la yiraahdo EMA ayaa la soconaysa xaaladda tallaalka waxaana haatan ay qiimeyn ku sameynaysaa arrimaha dhigxinjirowga la sheegay ee tallaalkan la xiriira. waxaa isaguna sidoo kale ka hadlay arrinkaasi maanta dhakhtar sare oo ka tirsan isbitaalka Hus isla markaana madax ka ah qaybta cudurrada caabuqa waa dhakhtarka la yiraahdo Veli-Jukka Anttila waxaana uu sheegay in dalkan Finland gudaheeda haatan wax arrinka ku saabsan aanu ka jirin isla markaana aysan soo ifbixin dhibaato xagga xinjirowga dhiigga ah oo uu sababay tallaalka AstraZeneca sababta awgeedna tallaalku Finland sidii caadiga ahayd uu uga socon doono waxaana uu sheegay inaanay jirin sabab loo joojiyo. sidoo kale hay-adda caafimaadka WHO ayaa arrinkan ka hadashay waxaana hay-addu sheegtay in tallaalkaasi AstraZeneca aan la joojinaynin isla markaana aysan jirin sabab loo joojiyo. sidaasina waxaa sheegay dhakhtar ka tirsan WHO haweeneyda loo yaqaano Margaret Harris oo waramaysay wakaaladda wararka AFP waxaana ay sheegtay in haatan aysan soo ifbixin wax kale oo weyn oo khatar oo arrinkaasi ku saabsan iyadoo isha ay ku hayn doonaan xaaladda tallaalka. wararka ka imanaya dalka Estonia ee Finland ay dariska yihiin ayaa lagu soo waramayaa in xaaladda ka jirta fayruska corona ee dalkaasi ay aad uga soo dartay si khatarana ay ku socoto. sida ay sheegeen howlwadanada caafimaadka ee dalkaasi Estonia waxaa maanta laga helay xanuunka 1358 qof. sidoo kale 9 qof ayaa la sheegay in ay u dhinteen xanuunka sida laga soo xigtay raadiyaha qaranka ee dalkaasi Estonia. isbitaalada dalka Estonia ayaa haatan waxaa xanuunka la ildaran oo la jiifa 658 qof iyadoo dhinaca qaybta gargaarkana ay aad u soo badanayso. 86 qof ayaa tiradii shalay ku korortay sida wararku ay sheegayaan. sida wararku ay tilmaamayaan tallaalka reer Estonia waxaa haatan ka qaatay 9% marka loo eego tirada dadka ee dalkaasi Estonia. wararka ka imanaya dalka Norwayna waxa ay sheegayaan in magaalada Oslo xaaladeedu ay ka soo darayso. waxa ujeedadu ahayd in xayiraadihii saarnaa magaaladaasi la dabciyo horaantii bishan saddexaad hase yeeshee arrinka waxa uu noqday mid ka duwan sidaasi. xaaladda faafista ayaa si dhaqso ah uga soo dartay waxaana halkii laga dabcin lahaa xadeymahaasi ay maamulka magaaladu go'aan ku gaareen in ay xadeymahaasi adkeeyaan. dukaamada intooda badan ayaa xiran sidoo kale maqaaxiyaha ayaa albaabada loo laabay goobihii hiwaayadaha oo dhanna waa ay xiran yihiin. maqaayadaha khamriga lagu caba ayaa sidoo kale waxaa iyagana la xiray muddo 4 bilood ah. waxaa haatan jira magaaladaasi Oslo arrin aad khatar oo ah oo in xanuunku uu faafayo si kasta oo xadeymahaasi loo sii adkeeyay iyadoo 7 cisho ugu dambeysana xanuunku uu si aad ugu faafaya isla markaana la helaya tiro maalinba ka badan maalinkii ka horeeyay. dadka khubarada ah ee arrimaha siyaasadda u kurgala iyo kuwa caafimaadka ayaa waxay arrinkaasi ku eedeynayaan in ay dhalinyaradu sabab weyn ku leeyihiin iyagoo aan u aabayeelaynin dhammaanba talooyinka loo soo jeedinayo. sidoo kale waxaa qayb ka ah bay yiraahdeen nooca cusub ee fayruska corona ee dalkaasi ku sii faafaya. waxaa la cadeeyay in tirada faafista ee dhalinyarada da'doodu ay u dhaxayso 16 iyo 19 haatan ay aad u soo kordhayso isla markaana dadka laga helayo xanuunka maalmihii ugu dambeeyay ay yihiin dadka da'doodu ay u dhaxayso 16 ilaa 19 kuwaasi oo 6 jibbaar noqday tirada 4 usbuuc ee la soo dhaafay. dalka Sweden wararka ka imanaya waxa ay sheegayaan in 35 qof oo hor leh ay xanuunka u dhinteen iyadoo tirada laga helayna dadka fayruska corona ay gaarayso 5335. tan iyo intii xanuunka safmarka uu ka bilowday dalkaasi Sweden ayaa tirada guud ee dhimashadu waxa ay maraysaa 13146. wararka ka imanaya dalka Jarmalkana sida ay sheegeen howlwadanada caafimaadka waxaa dalkaasi ka bilowday mowjadii saddexaad ee faafista fayruska corona waxaana 24 saac la soo dhaafay dalka la sheegay in xanuunka laga helay 14356 waana tiradii ugu badnayd muddo 5 usbuuc oo haatan tirada maalinkii laga helay
aada u soo yaraanaysay. mar labaad ayuu xanuunku uu ka bilowday iyadoo mawjadii saddexaadna ay dilaacday. madaxa macadka la yiraahdo Robert Koch ee qaabilsan u kurgelidda arrimaha viruska corona, Lothar Wieler, ayaa waxa uu sheegay inuu aad uga warwarsan yahay tiradan hadda soo kordhaysa ee mar labaad bilaabatay. sababta awgeed ayuu yiri, waxaan oran karnaa Jarmalka mawjadii saddexaad ayaa haatan ku dhifatay. waxa uu ka codsaday dadweynaha reer Jarmal inay u hoggaansamaan talooyinka la siinayo, isla markaana ay kala fogaanshaha ku dadaalaan, sidoo kale isu imaatinka la yareeyo iyadoo lagu dadaalo buu yiri afshareerka qaadashadiisa. waxa kale uu dowladda u soo jeediyay in tallaalka ay dowladdu dedejiso si markaasi looga hortago xanuunkan aadka u faafaya. waxa uu sheegay Weller in dadka ka weyn 80 sano intooda badan haatan la tallaalay, xanuunka haatan aan si aadan looga helin, laakiin dadka da'da kala jira ee kasoo haray xanuunku uu ku badan yahay. dalka Jarmalka oo tiradiisu ay gaarayso 83 milyan oo qof ayaa haatan waxaa la tallaalay 7%, iyadoo tallaalkuna uu si caadiya ku socdo. guud ahaan markaynu eegno adduun weynaha waxaa haatan tirada guud ee dadka laga helay viruska corona ee caalamka ay maraysaa 119,260,262 qof. tirada dhimashaduna waa 2,644,007 qof. qaaradda Yurub markaynu eegno 39,309,111 qof ayaa xanuunka laga helay, 888,719 way u dhinteen. dalka Mareykanka ayaa mar kale dhimashadii ay kor u soo kacday iyo tirada dadka laga helayo viruska corona 62,773 ayaa 24 saac la soo dhaafay laga helay, 1,531 way u dhinteen. tirada guud ee dhimashada Mareykanku 543,721 ayay maraysaa, halka tirada guud ee dadka laga helayna 30 milyan ay fooda la gashay. wadamada sida aadka uu haatan u soo kacay Hindiya oo kaalinta labaad ku jirta ayaa ka mid ah. waxaa 24 saac la soo dhaafay Hindiya laga helay 21,668, waxaana Hindiya tirada guud ee haatan maraysaa 11,305,979. tirada dhimashadana 158,326, iyadoo 24 saac la soo dhaafay Hindiya ay 113 ka dhinteen. dalka Brazil oo kaalinta saddexaad ku jira ayaa xaaladiisu ay aad u kacsanayd dhammaan maalmihii la soo dhaafay oo dhan. Brazil waxa ay haatan maraysaa 12,284,269, iyadoo kaalinta labaad mar dhow ka qaadi doonta dalka Hindiya haddii sidan ay ku soo socoto. maxaa yeelay 24 saac la soo dhaafay waxaa laga helay 78,297 qof. tirada dhimashaduna waxay ahayd 2,207 qof. tirada guud ee dhimashada Brazil kaalinta labaad bay ku jirtaa adduunka, waa 273,124 ayaa ka dhintay. sidoo kale Faransiiska ayaa xaaladiisu aad u xun tahay. Faransiiska 4 milyan ayuu hadda fooda la galayaa mar dhow, waxaana 24 saac la soo dhaafay laga helay 27,166, 265 way u dhinteen, 90,000 ayay tirada guud ee dhimashadu haatan ay ku dhadhowdahay. dalka Talyaaniga oo xaaladiisu ay maalmahan isna aad u kacsanayd ayaa haatan 3 milyan kor u dhaafay, waxaana mar dhow uu ka kormari doonaa hadduu saan kusii socdo dalka Spain oo kaalinta 7 ku jira. Talyaaniguna kaalinta 8 ayuu marayaa. 24 saac la soo dhaafay Talyaaniga 25,673 qof ayaa laga helay, 373 way u dhinteen, 100,000 kor bay u dhaaftay tirada guud ee dhimashada. waxaa sidoo kale Turkiga 14,046 ayaa laga helay, waa tiro aad u badan markii maalmihii la soo dhaafay loo barbar dhigo. hase yeeshee dhimashada Turkigu 63 ayay ahayd. tirada guud Turkigu 3 milyan ayuu ku dhadhow yahay, waa 2,800,000 ayuu marayaa. tirada dhimashadana Turkigu waa 29,290. dalka Jarmalka oo aan soo sheegnay ayaa isaguna ka mid ah dalalka haatan xaaladiisu aadka uga soo darayso, 13,655 tiro kor u dhaafayso ilaa 14,000 ku dhadhow ayaa laga helay, waxaana tirada guud ay maraysaa 2,546,510 qof. 284 waa ay ka dhinteen. tirada guud ee dhimashada Jarmalkuna waxa ay maraysaa 73,560. dalalka kale ee aad xaaladiisu u kacsan tahay 24 saac la soo dhaafay dalka Poland ayaa ka mid ah oo maalmahan tiro aad u yar laga helay. hase yeeshee 24 saac la soo dhaafay 21,143 ayaa laga helay. Poland kaalinta 14aad ayuu tirada kaga jiraa xanuunka adduun weynaha dadka laga helay, waxaana ay maraysaa tirada guud 1,900,000
tiro ku dhow 375 qof ayaa ka dhintay 46,373 ayay tirada guud ee dhimashada maraysaa. dalka Czech oo kaalinta 20aad ku jira ayaa isaguna 24 saac la soo dhaafay xaaladiisu aad u kacsanayd, waxaana tirada dadka laga helay ay ahayd 14,516 iyadoo tirada guudna 1,400,000 ku dhow. 202 qof ayaa ka dhintay 24 saac la soo dhaafay, tirada guud ee dhimashadana waa 22,743. dhegeystayaasha qiimiga ee qaayaha mudan ee hawada naga dhageysanayo, wararkii ku saabsanaa viruska corona ee Finland iyo caalamka intiisa kale intaa ayaan kusoo koobaynaa. inta aan barnaamijka soo gabagabayn, dardaarankeennii ahaa in la dadaalo, isla markaana lagu dadaalo in awaamirta la qaato, isu imaatinka la yareeyo, isu martinta la iska joojiyo inta 3 toddobaad ay bishan ka dhammaanayso oo xaaladdu ay dhan u dhacayso. faafista viruska corona weliba nooc cusba si xawli leh ayuu ku socdaa. isbitaaladii hadda waa qaylinayaan oo waa buux dhaafeen, waxaana laga yaabaa dalku inuu xaalad aan caadi ahayn galo, iyadoo weli dowladdu isla meel dhigi laadahay in xukun degdeg la soo rogo iyo xayiraada dhinaca socodka iyo in kale, maxaa yeelay dhaqaale ahaan waxa ka ratibmaya ayaa aad u dhib badan oo ma aha go-aan ay dowladdu si degdeg ku gaari karto. laakiin waxyaabaha lagu xakamayn karo xanuunkan waxaa ka mid ah iyadoo awaamirta la qaato, dadkuna socodka iyo isu imaatinka la joojiyo inta dhibaatadan laga baxayo. awaamirta la qaato, haddii xanuunka aad dareentana isla markiiba baaritaanka aad hore ka aado, walow astaamaha ku haya haba ahaadeen kuwa fudud. hal astaan ha ahaatee, dhuunta hadday ku xanuunayso baaritaanka iska aad, maxaa yeelay in badan waxaa dhici karta adigoo aan astaamihii lahayn xanuunka inaad faafinayso. karantiin haddaad ku jirto, fadlan gurigaaga joog. dhibaatada ugu daran waxaa weye dadku markii baaritaanka uu aado, haddii uu waqti dheer qaato xitaa 2 maalmood, waxaa laga yaabaa qofkii inuu iska wareegayo oo u haysto in uu socon karo. arrinkaa lama ogola, maxaa yeele waxaa dhici kara xanuunkii inuu kugu soo baxo oo sida aad kusii faafiso. marka dhegeystayaal, talooyinka aan u hogaansano, naftaada badbaadi, tan ehelkaaga badbaadi, tan dadkaagana badbaadi. waa bahda SSM oo dhammaantiin baa idin leh sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.